كاها افتينكا إلى إسكاعدة يدوى قعد كشمبروه واستانت عرشة وعصب وانا حلي قف كستاي سوديارين ايو مارين تنولوشيسا أرضي كستانا وقعو تجد قوبتيسا وحبرشو هالكني ودوكسكن يو قبيلي ساعدنا وأبار اللحدي الصبح نمو ما يركي قبيلي محمد أمين عمر عبد ويوهليان حقيا فلنتا مدح وحبرشة دولة هوسي إيا قاسمها رمها بلشدو يسيدو كلي gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Gabiley Maxamed Aadan ay ku sugnaayeen dugsigaasi si loo fuliyo barnaamijka kadiska abaalmarinta macalinka iyo ardayga oo ah barnaamij uu curiyay maayirka Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi waana barnaamij hirgelintiisu curdin ku tahay guud ahaan qaranka Soomaaliland waana barnaamij lagu dhiirigelinayo ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarashada gobolka Gabiley oo dhan bil kastana la qaban doono hal mar waana kadis aan ogaan karin macalin iyo arday midna barnaamijkani kadiska abaalmarinta ardayga macalinka ee dhif iyo naadirka ku ah Soomaaliland ee hirgeliyay maayirka Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi ee daafurkiisu maanta ka bilaabmay dugsiga New Gabiley ayaa maayirka iyo xubnuhu waxay sugaanba cidii daafur lahayd barnaamijkan ayaa waxa albaabka dugsiga New Gabiley soo caga dhigtay macalinkii u horeeyay ee subaxan saaka u soo shaqo taga dugsiga oo ah Mustafa Saleebaan wax yar kadibna waxa dugsiga soo gaadhay laba hablood oo noqday labadii hablood ee ugu horeeyay ee dugsigani ku soo kalaha soona waxbarasho doonta oo loo aqoonsaday inay yihiin labadii hablood ee ugu horeeyay ee 1300 ee dhigatay dugsigani ugu soo horkalahay kuna guuleystay barnaamijka kadiska abaalmarinta macalinka iyo ardayga waxna maayirka Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi uu daabuurka dugsiga oo xilligani ahaa cidlo hadana ciriiriya hortooda ku gudoonsiiyay abaalmarino qaaliya iyo qadar lacageed oo maayirku ugu talagalay inuu ku maamuuso labadani hablood iyo sidoo kale macalinkii ugu soo horkalahay macallimiinta dugsiga waxana ay saddexdan qof noqdeen saddexdii qof ee ugu horeeyay ee dhigaha rikoodh cusub sanadka 2020 loona aqoonsaday dadkii ugu horeeyay lagu abaalmariyay barnaamijka kadiska abaalmarinta ardayga iyo macalinka ee uu curiyay maayirka Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi oo halkaas ka hadlay ayaa sharaxay barnaamijkan subax wanaagsan saaka halka waxaanu joognay 6:00 subaxnimo macallimiinta iyo maamulka iyo ardaydaba anaga ka soo horeynay waxaanu eegaynay macalinka ugu hor yimaada iyo ardayda labada arday ugu soo horgala saaka markaa Ilaahay fadligii qofkii ugu horeeyay ee iskuulka u soo shaqo taga ama waxbarasho u soo doontay ugu horeeyay soo gala macalinka la yiraahdo Mustafa Naasir Ahmed soo ma garanaysan ardaydii ugu soo horeysay saaka ee ardayda 12 ardaydii ugu hortimiday saaka iyaduna waxay ahayd Isra Diiriye Ahmed ardaydii labaad ee Isra ku xigtay iyaduna waa Mumtaaz Cabdi Ismaaciil mudana maamule waxaanu jecelahay inagoo wada jiray inaan halkan ku gudoonsiino abaalmarinta ardaydu waxay isugu jirtaa buug shandadan waxyaalihii waxbarashada ka caawinayay iyo lacagba iyo kitaab quraana barnaamij dhiirigelina oo aanu ugu talagalnay ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo macallimiintooda dhiganaysa in lagu dhiirigeliyo oo aanu tiyada qaar bishiiba mar aanu iskuul ugu talagalnay si aan ku talagalahayn inaanu u tagno si aanu u ogaano waayo ardayda iyo macallimiintuba ragna xagga hore ay soconayaan inna dhexda ku jiraysa inna waa la riixaya soo maaha oo aynu xagga hore u wada tagno ayaanu ugu talagalnay runtii barnaamijkan sokor waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta xildhibaan Jamaado iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Gabiley Maxamed Aadan agaasimaha arrimaha bulshada Yuusuf iyo madaxa waxbarashada Muxiidiin waxaana ay yiraahdeen marka ardaydii ugu soo horeysay iyo ardaydii labaad ay midna kala dambeeyeen marka waxaanu siinay jaysado qadar lacaga oo aanu isleenahay ha ku dhiiradaan macalinkaasina aanu abaalmarintii gudoonsinay marka waxaanu leenahay iskuul walba mar walba iskuulada nabad hoos yimaada si kadis ayaanu gali doonaa oo aanu ugu dhiirin doonaa iskuulka New Gabiley taasoo noo nimid inaanu dhiirigelinta oo ah cidii u soo horeysa iskuulkan sidiisaba korna arday baa dhigta marka inaanu dhiirigelino ayaanu saaka ku soo kalaanay maayirku aad iyo aad waxaanu uga mahad celinaynaa waxqabadka iyo dhiirigelinta mar walba la garab taagan waxbarashada gobolka saaka wuxuu booqasho kadiisa ku yimid maayirku dugsiga New Gabiley oo ku dhiirigelinayno waxbarashada waxa uu maayirku jaaisado iyo abaalmarino siiyay macallinkii iyo ardaygii ugu soo horeeyay sina waxa ka turjumaysa dhiirigelinta iyo hamiga iyo juhdiga uu hayo annagu ka wasaaradda waxbarasho ahaan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa 6 markaan nimid aanu rubuc joognay 6 iyo 3 waxa soo galay macallin kamid ah macallimiinta oo soo kalahay halkaasoo ku rikoor garaynay haddana waxa soo galay gabadh haddana waxa soo gashay gabadh ardayda labada arday ee soo galay iyagu standard 8 bay ahaayeen waxaanu siinay dhiirigelintii ugu mudnayd taasoo socon doonta noona qaban doono bil walba iskuulka nasiibka u hela
nasiibkana waxaa yeeshay dugsiga hoose dhexe ee New Gabiley waxaana naga go'an inaanu waxbarashada hoose dhexe ee gobolka Gabiley kor u qaadno barnaamij aan ugu talagalay inaanu ku dhiirigelino ardayda barnaamijkan oo fikirkiisu u lahaa maayirka degmada ahna duqa caasimadda Gabiley ilaahay raaliha ka noqdee oo fikirro fara badan oo bulshada ay ku horumarayso mar walba u heegan sidii bulshadiisa ugu soo kordhin lahaa fikir fiican run ahaantii barnaamijkan oo ugu talagalay inaanu ku dhiirigelino ardayda iyo macallimiinta sidoo kale waxaanu dareenkooda la wadaagnay ardaydan iyo macallinkani ku guuleystay barnaamijka kadiska waxaana ay yidhaahdeen tahay dhiirigelinta farxadda ballaaran lagu abuurtay dugsi ahaan degmo ahaan iyo waxbarasho ahaanba ay noqonaysaa arrin dahaba oo aad qayb laxaad looga qaadanaysa guud ahaan waxbarashada Soomaaliland. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Mustafa Naasir Axmed oo kamid ah barayaasha ka howlgala dugsigeena hoose dhexe New Gabiley saaka waxaan subaxdii horena soo booqday maayirka gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka uu bilaabay dhiirigelinta waxaan aad ugu faraxsanahay sidoo kale in waxbarashada ay qayb ka tahay horumarka ballaaran ee gobolka uu ka wado maayirku madaxda gobolka Gabiley anoo keentay abaalmarinaha barnaamijkan waxaan u arkaa barnaamij fiican dhiirigelinaya ardayda kaalmo fiicanna insha Allah ay soo hayn doonaan ardayda laguna dhiirigelinayo magacaygu waa Sara Diiriye Axmed barnaamijkan waxaan u arkaa si fiican wayna xaaji telefishinka qaranka Gabiley.